taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa taliyaha ururka 17 ee ciidanka xoogga dalka u magacaabay gaashaanle dhexe Maxamuud Cismaan Diyaano oo horey u ahaa taliyihii ciidanka BSF. sargaalkan dhalinyarada ah ayaa tan iyo dabyaaqadii sanadkii 2018 ku magacaabnaa markaas oo xilka uu kala wareegay walaalkiis isaga la dhashay Asad Cismaan Diyaano oo haatan ah taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya. xilligaas oo Asad uu isku soo taagayay musharaxnimada hoggaanka maamulka Puntland. Maxamuud Cismaan Diyaano ayaa maamulayay ciidanka BSF muddo badan waxa uuna yahay mid ka mid ah saraakiisha loogu jecel yahay ee ku sugan deegaanada Puntland. bartamihii sanadkii 2021 sargaalkan iyo ciidankiisa ayaa la dagaalamay ciidan hoostagay maamulka Puntland markaas oo u yimaaday khilaaf u dhaxeeyay hoggaanka BSF oo isaga u yahay iyo hoggaanka maamulka Puntland. waxaana boosaaso dagaal adag oo ka dhacay xilligaas ugu dambeyntii lagu guuleystay in lagu dhameeyay inuu sii ahaado Maxamuud Cismaan Diyaano taliyaha ciidanka BSF. ciidanka BSF ayaa hoostaga xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ayna haatan ay yihiin mid ka mid ah ciidamada ugu awoodda badan sidoo kalena haysta tababaro sare. isbitaalka Amora Specialist waxa uu dalka keenay qalab casri ah oo adigoo aan qalin lagu marsin ama dawo lagu siin ayaa laga daaweynayaa hameeyirida ragga. waxaan xaadir kugu ah isbitaalka dhaqaatiir PhD sidata oo 20 sano wax ka badan ka shaqeynayay cilmiga cudurrada ragga.